xukun dil ah oo lagu fuliyay shariicada islaamka kana dhacay gudaha Soomaaliya ayaa si weyn u soo jiitay indhaha shacabka reer Ethiopia kadib markii ay baahisay warbaahinta BBC da laanta afka Axmaariga maalintii shalay ahayd degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ee maamul goboleedka Puntland Soomaaliya waxa ka dhacay dil lagu fuliyay Hodan Maxamed Diiriye oo horay loogu eedeeyay in ay u dishay gabadh yar oo 14 jir ahayd oo gurigeeda ka shaqeynaysay kadib baaritaan ay sameeyeen hay'adaha ammaanka iyo maxkamadda gobolkaasi oo ugu dambeyn Hodan waxa lagu fuliyay xukun dil ah iyadoo loo maray shariicada islaamka kadib dilkaasi warbaahinta BBC da laanta afka Axmaariga ayaa baahisay warbixintan gobolka Puntland oo ah maamul ka tirsan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu fuliyay xukun dil toogasho ah oo haweeney lagu eedeeyay in ay dishay gabadh yar oo 14 jir ah oo gurigeeda ka shaqeynaysay eedeysanaha oo ah 34 jir Hodan Maxamed Diiriye ayaa la sheegay in ay bishii November ee sanadkii hore dishay gabadh yar arrintaas oo kicisay carab ballaaran oo bulshada dhexdeeda ah kadib markii maxkamaddu heshay dambiga xukun dil ah ayaa maanta lagu fuliyay magaalada Gaalkacyo gabadha la dilay waxay ahayd agoon waalidkeeda ayaa dhintay iyadoo hal sano jirta waxaana koriyay ehelkeeda Hodan ayaa qaadatay gabadha sanadkii hore kadib markii ay sheegtay inay u baahan tahay shaqaale guri intii ay gabadhu guriga ku jirtay baaritaanka booliska ayaa si joogto u xaqiijiyay in gabadha la garaaci jiray loona geysan jiray dhibaatooyin kale sidoo kale taleefanka eedeysanaha ayaa laga helay cadeymo muujinaya tacadigaasi oo ay ku jiraan codad iyo muuqaalo mas'uuliyiinta dawladda ayaa sheegay in xukunkan dilka la fuliyay kadib markii gabadha qoyska ay ka dhalatay ay diideen in ay qaataan mag isla markaana ay dalbadeen in xukun dil loogu fuliyo eedeysanaha sida uu dhigayo maxkamadda waxaa la xaqiijiyay in xukunka dilka uu ku salaysan yahay shariicada islaamka sidoo kale waqtiga xukunka la fulinayay qoyska gabadha la dilay iyo kan eedeysanaha labaduba waxay goobjoog ka ahaayeen maxkamadda sida uu sheegay maamulka Puntland mas'uuliyiinta Puntland ayaa xusay in tani tahay markii ugu horeysay ee muddo ka badan 10 sano xukun dil lagu fuliyay haweeney xukunka dilka u dambeeyay ee kan ka horeeyay ayaa dhacay 13 sano ka hor markaas oo 13 xubnood oo ka tirsan al-shabaab ay ku jirtay hal haweeney oo lagu toogtay eedeymo la xiriira dilka macallin diimeed caan ah haddaba markii warbaahinta BBC ay baahisay warbixintan dadka reer Ethiopia ayaa siyaabo kala duwan ooga falceliyay iyagoo intooda badan soo dhaweeyay xukunkan dilka ah ee lagu fuliyay shariicada islaamka mid ka mid ah dadka fikirkooda dhiibanaya ayaa yiri waa sax waa wax lagu farxo waana waxay muhiim tahay in uu ka dhaqan galo gudaha Ethiopia waxaa dhacay dilal fara badan waxaana la sheegaa in dambiilayaashii la qabtay balse ugu dambeyn lama xaqiijin karo halka ay ku dambeeyeen dambiilayaasha halka xubin kale uu yiri dad badan ayaa muujinaya cabasho ku saabsan heerka cadaaladeed ee Ethiopia iyagoo sheegaya in marar badan dambiilayaashu aysan helin ciqaab u qalatan dambigooda halka mid kale uu leeyahay qofkii la dulmiyay isagoon xaq helin ayuu midkii wax dulmiyay banaanka jooga wax kale oo ay tilmaamaan iska daayay markii la yiraahdo cadaaladda dadka reer Ethiopia waxa ay dhageystaan codka dalalka dariska iyo kuwa dibadda halkaas oo la fuliyo dambiyo tusaale ahaan degmada Gamo ee gobolka Arbaaminji gacan ku dhiigla si raaxandara u dilay ilmaha Nadera ayaa lagu xukumay dil balse raadkii dacwadda ayaa la sheegay in la baabi'iyay mana jira wax xukun oo lagu fuliyay eedeysanihi shariicada islaamku waa wax wanaagsan haddii lagu dhaqmo mana aha oo kaliya in dalalka islaamka lagaga dhaqmo balse waa in xitaa dalalka aan muslimiinta ahayn la geeyo lagagana dhaqmo ku kale ayaa ku dooday Soomaaliya oo burbursaneed muddo dheer iyo inagoo dawlad ahayn intaaba haddana Soomaaliya ayaa inaga sarreysa dhinaca cadaaladda oo waad arkaysaa wax hadda ka dhacay Gaalkacyo ku kale ayaa yiri maxkamaddaasi way fiicnaan lahayd inay ku taalo gudaha Ethiopia sababtoo ah kuwa badan oo dambiilayaal ah ayaa tirka la istaajin lahaa ku kale ayaa ku dooday Soomaaliya way burbursan tahay balse xagga cadaaladda mar walba way inaga horeysaa mid kale ayaa leh cadaaladdu waa midda maanta ka dhacday Gaalkacyo mid kale ayaana ku doodahaya waddanka aynu ku nool nahay Ethiopia way fiicnaan lahayd in loogu bedelo Soomaaliya sababtoo ah Soomaaliya waxa ka jirta cadaalad qofkii dambiilaha ahaa dambigii laga jarahayo midkii dambiga loo geystay uu dareemayo in si sharci ah loogu xukumay midkii dambiga ka galay mid kale ayaa leh Ethiopia muddo dheer waxay ku faantaa in heerka xaqsoorka iyo cadaaladda dalku ay sare u kacday balse taasi waa been waxaana tusaale kugu filan Soomaaliya oo aysan dawlad ka jirin xilligan heerka cadaaladeed iyo meesha ay marayso haddaba marka laga yimaado sida dadka reer Ethiopia u soo jiitay dilkan ka dhacay degmada Gaalkacyo shacabka Soomaaliyeed ayaa dhankooda si weyn u soo dhaweeyay dilkaasi iyagoo sheegay in ay taasi tahay cadaalad loo baahnaa haddaba sideed u aragtaa in shacabka reer Ethiopia ay ku doodaan in Soomaaliya ay Ethiopia kaga sarreyso heerka cadaaladeed iyo garsoor ee gudaha dalka Soomaaliya dhinaca kalena ay codsadaan in shariicada islaamka laga fuliyo gudaha dalkooda